وزارة Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo gabaldhicii maanta daafuray qorshaha lagu naleynayo garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Muqdisho oo laga hirgelinayo nalal awood u siinaya garoonka inuu habeenkii shaqeeyo ayaa sheegay in toddobaadkan marka la soo gabagabeeyo sameynta nalalka uu garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Muqdisho bilaabayo duulimaadyada xilliga habeenkii maanta halkan sidaad aragtaan waxaan ka qayb qaadanay suritaan nalalkaas oo suurto gelin doona in aeroboortka magaalada Muqdisho uu habeenkii nal leeyahay diyaaraduhuna ay ku soo degi karaan habeenkii macnaheedu waxay tahay waxay u sahli doontaa shacabka Soomaaliyeed inay aeroboortka ka soo degi karaan habeenkii oo habeen iyo maalinba aeroboorku furnaan doono marka wasiirka iyo shaqaalaha aeroboorka ay dhameeyaan shaqada oo ugu badnaan qaadan doonta usbuuc meelahaas inta nalalka lagu dhameynayo laakiin sidaad aragtaanba waa la bilaabay way shidmeen way shaqeynayaan dadaal aan u galnay maalinta aan shaqada bilownay awgeed wasiirka iyo shaqaalihiisa aad hawshan uga shaqeeyay iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee waxaan ku fashay waxaan aaminsanahay hadii aan annagoo wadajir ah isku duuban isku dayno inaan dalkan bedelno taaka ayaan u bedeli karnaa Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu dhinaca kale bulshada Soomaaliyeed ka codsaday in dawladdu ay kala shaqeeyaan dhinaca ammaanka uu sheegay in xukuumaddiisu ay ku howlan tahay howlgallo lagu sugayo amniga caasimadda guud ahaan dalka shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay dawladda la shaqeeyaan gaar ahaan arrimaha amniga inay nagala shaqeeyaan oo maalmahan noo saaran ahmiyadda si aan ummadda Soomaaliyeed ugu fududeyno ugu noolan lahaayeen sida hore sibka dhib yar ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka soo laabtay socdaal uu ku tagay deegaanka Balidogle ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in halka uu ugu tagay ciidamada dawladda ee xiriyaha ku leh toddobaadkan gudihiisa ayaa 23 sano kadib Soomaaliya waxa la rajaynayaa in garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Muqdisho uu dib u soo ceshto duulimaadyadii xilliga habeenkii oo garoonku uu xilli lahaan jiray 23 sano ka hor عبد الناصر محمد تلفزيون كون كيبل garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Muqdisho